ka Juun waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed waa markii gobolada waqooyi ay ka xuroobeen gumeystii Ingiriiska isla markaana ciidda Soomaaliya laga taago calan Soomaaliyeed 1960kii waxaana ka soo wareegatay 59 sano munaasabad lagu weyneynayay maalintaasi qiimaha ay ugu fadhiso shacabka Soomaaliyeed xalay waxaa lagu qabtay xarunta aqalka dawladda hoose Xamar munaasabadan 26 Juun lagu maamuusay waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi wasiiro xildhibaano senataro mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka ee ku dhaqan magaalada Muqdisho fanaaniinta hubalada waa bari ayaa goobta waxay ku soo bandhigeen heesooyin kala duwan ay ugu hadlayeen 26 Juun madaxweyne Farmaajo marka uu gaaray xarunta aqalka dawladda hoose Xamar marka hore waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya intaasi kadib waxaa la isugu tagay barxadda weyn ee xarunta aqalka dawladda hoose Xamar halkaas oo lagu maamuusayay munaasabada 26 Juun gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cusmaan Yariiso oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa soo dhaweeyay xubnihii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay isla markaana waxa uu sheegay in 26 Juun ay ku weyn tahay ummadda Soomaaliyeed gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay 26 Juun waxaanan isleeyahay oon aad iyo aad u aaminsanahay haddii ay keeneen oo ay soo qaadeen waxaynu rabnaa midnimo Soomaali ma kala maarmi karto cid gaar isu taagi kartaa ma jirto faa'iido ay leedahayna ma jirto China mitaal u soo qaadanaya adduunka waa dadka ugu badan 1 bilyan iyo 500 milyan ayay sii marayaan waxana weeye waa hal dawlo waxana lagama maarmaana wax kastaba waxaan qabaa meel walba dadka ugu badan dadku markuu badan yahay wuu wax soo saar badan yahay aad iyo aad buu wax u soo saaraya leesh wax soo saarku waa awoodda dadka sidaa la ajligeed waxaan qabaa inaynu midnimadeennii sidaan u soo celin lahayn ee aynu raalligelin isaga bixin lahayn ee aynu isu kaashan lahayn inaynu samayno ugu dambeyntii munaasabada waxaa soo gunaanuday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu si qoto dheer ah u soo bandhigay muhiimadda maalinta 26 Juun oo xusuus weyn ku leh shacabkeena Soomaaliyeed maadaama ay ahayd ilayskii koowaad ee halganka xornimo doonka iyo maalintii koowaad oo calan Soomaaliyeed laga taago dhul Soomaaliyeed oo xor ah madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay dib u milicsadaan sooyaalka wanaagsan ee dalkeena sugoona walaalaha waqooyiga ugu baaqay inay hormuud ka noqdaan midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed haddii markii ay dadka waqooyi ay hormuud u ahaayeen dareenka gobonimo doonka iyo wadaniyadda waxaan hadda ugu baaqayaa inay hormuud ka noqdaan midnimada iyo wadajirka dalka Soomaaliya si aan caqligeenna iyo cududeenna iyo hadafkeenna u mideenno kana shaqayno mustaqbalka ubadkeenna iyo maslaxadda dadkeenna iyo dalkeenna waxaan ummadda Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dawladdan ay ku hoolan tahay soo celinta sharafta iyo karaamada dadkeenna ee hore u lahaan jireen iyo buuxinta kaalintii Soomaaliya ay ku lahayd beesha caalamka si taas loo horgeliyo Soomaaliya waa inay noqoto dal nabada ku guulaysata midnimo kuna tallaabsata horumar sidaas darteed midnimo wadajir
iyo cududeenna aan isu geyno ayaan kaga gudbi karnaa tartanka ka socda adduunka ee ah dhanka horumarka ama siyaasadda iyo dhaqaalaha. tartankaas cusub lama jaan qaadi karno haddii aynan u midoobin, haddii ummadda Soomaaliyeed aysan u midoobin, awooddoodana aysan isu keenin. waxaan mar kale ugu baaqayaa ama aan ku baaqayaa in wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland aan dardargelinno. waxaan ku soconnaa muddo 30 sano ah hadda oo ummadda Soomaaliyeed uu waqti badan ka lumay, gaar ahaan dhalinyarada. waxaa loo baahan yahay in runta la wajaho oo si walaaltinimo leh wada hadalkii hakadka galay halkiisii laga sii wado, la isxog waraysto, la daaweeyo nabarradii laga dhaxlay duruufihii adkaa ee ina soo maray. waxay dowladdu diyaar u tahay in la lafaguro oo miiska la soo dhigo wax kasta oo lagu kasban karo ama kalsooni lagu siin karo shacabka walaalaheena ee Somaliland, oo looga bogsiin karo dareenkooda si wadajir ahna loogu sixi karo khaldaadkii ay keeneen marxaladihii aan soo marnay. ummadda Soomaaliyeed ma kala maaranto sidii la sheegay, waxaanan marnaba aan hubaa inay Soomaaliya isu imaan doonto oo aysan kala maqnaan doonin. gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qiray in taariikhdaas ay tahay mid mudan in la ilaaliyo, loona baahan yahay in laga fikiro midnimada Soomaaliyeed. saacaddu markii ay soo gaartay 12 habeenimo saqda dhexe waxaa la isugu yimid barxadda weyn ee xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar, halkaasoo laga taagay calanka Soomaaliya. waxaana dadka reer Muqdisho mar qura ay maqleen dhawaqa buleerka oo ay u maleynayeen in iskoorimaad Muqdisho uu ka dhacay, balse ay ahayd dabaaldega munaasabadda 26 Juun.